أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalyaal salaamayaa dhammaan meel kastaad joogtiin, walaalaha janalkayga ku xiran waqti kastaad ku jirtiin, waxaan ilaa idin wacnaado. kusoo dhawaada maanta kelmadaha yare kooban aan jeclaysta inaan ila wadaago. maanta waxaan jecelahay inaan naftayda iyo naftiinaba aan u sheego in kelmadaha yar ee kooban. naftaadu xaq ay kugu leedahay ama xuquuq ay kugu leedahay. xuquuqda bini'aadanka ama marka ugu horeyso xaqa ilaahay kugu leeyahay, xuquuqda ay kugu leedahay ay kugu leeyihiin waalidkaaga, xuquuqda ay kugu leeyihiin caruurtaada, xuquuqda ay kugu leeyihiin jaarkaaga, xuquuqda ay kugu leeyihiin cid walba oo la nooshahay, xuquuqda ay kugu leeyihiin. marka laga yimaado waxaa jirta xuquuq ay naftaada kugu leedahay. inta badanna waxaad moodaa in xuquuqda ay nafteenu inagu leedahay aanan inta badan aan xooga aanan saarin ama aanan ka fikirin. waxaad moodaa inaan mar walba humuumta ama waxyaabaha marxaladaha kala duwan ee nolosheena inala soo gudboonaanaya inaan mar walba focus badan saarno. waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan oon istaahilin inaan nafteena ku mashquulino ama aan nafteena kaga welwelsiino ama aan nafteena ku diiqadayno, ayna ahayn inaan maanta dhan ku diiqadayno, inaan maanta dhan ka fikirayno maanta dhan. taasi waxay ka dhigan tahay xuquuqdii ay nafteenu ay nagu lahayd ayaan meel ka dhacaynaa. waayo naftan ilaahay markuu ku siiyey ammaano ayay kugu tahay. ilaahay wuxuu ku faray inaad dib oo dhan ka ilaalisid ilaa intay ajasheedu ay imanayso ama saacadeedu ay imanayso. inaad naftan aad ku barbaarisid cibaadada ilaahay, inaad ku barbaarisid, sababtoo ah nafta haddaad ku barbaarin weydo cibaadada ilaahay, naftan waxaad u horseedaysaa halaag, aad horseedaysaa. maadaama dad muslima nahayna inay diintu inaga noqoto dhaqan, yani camal ayaa muhiima. in badan horta kelmadda waan kusoo celceliyaa sababtoo ah waxaan arkay inay diintu ay afuna inaga tahay balse dhaqan aynay naga ahayn. xaqa ugu weyn ay kugu leedahay naftaadu waa inaad dhammaan wixii ilaahay oo inaga xarimay oo dhan inaad ka tegtid, wixii ina farana inaad samaysid, cibaadooyinkale inaad kasoo baxdid. waxaa kaloo ku xigta inaad naftaada waqti siiso, inaad naftaada waqti ay wax ku barato, waqti adduunku yani ay la socoto marxaladaha kala duwan oo marayo. inaad yani waxyaabaha aad jeceshahay ama naftaadu waxay jeceshahay xiisaynayso ee wanaagsan ee nafta manfacad u leh ee adduunya aakhiraba u leh inaad yani aad samaysid. inaanad u ogolaanin cidna inayna kaa hor joogsanin ama aynadii kaa niyad jebin nolosha waxyaabaha aad jeceshahay, inaad mar walba samaysid ood ku dhiiratid. waa wax aad iyo aad u muhiima. because mujtamaceena inta ugu badan walaahi waxaa ku badan dadka niyad jebi oo xataa haddii aad adigu rabto inaad wax qabato ama waxaad usoo bandhigto lagu orno waxaas wax soconaya maaha, waxan waa sidan kan weeyaansan. laakiin qofku inuu isagu go-aan lahaado oo naftiisa wuxuu isagu la rabo u jecelyahay una cidna kala tashanin balse naftiisa ou la tashado oo isagu ku dhaqaaqo waa muhim. inaan mar walba yani aan ahaano dad iyagu naftooda yani xaqay ku leedahay ilaaliya. taas oo inta badan inaga ay naga maqan oonan yani dad badan ayna ku baraarugsaneyn. caafimaadkaaga inaad ilaaliso, waqti fiican seexato, cunto fiican cunto, hawo fiican qaadato. mararka qaarkood aad naftaada keliga intood baxdid aad naftaada aad yani aad soo maskaxdaada waxyaabo badan kasoo firigarayso ama kasoo saarto oo keliga aad muxuu haayey aad weheshid aad mararka qaarkood xataa u baahan tahay. mar walba oo naftaada ka fikirto ood yani xuquuqdeeda ilaalisana wax badan baa nolosha kuu fududaanaya. waxa kuu fududaanaya habkaada ubadkaaga aad u tarbiyanaysid, habka tacaamulkaaga dadka kale, waxyaabo fara badan. inay waxaad noqonaysaa qof iyadu isku habisan ama qof isagu isku habi ah ama isku faraxsan oo naftiisiina dhibaatooyinka soo gaadhay dhibaatada u keenay ka ilaalinaya ayaad noqonaysaa. marka inaan taa ku baraarugsanaano waa muhim weeyaan. insha allah intaa yaree hadalka yara kooban uma jeclaystay maanta inaan ila wadaago. aad iyo aad ugu mahadsantihiin dhammaan walaalaha janalkayga ku xidhan ee sida fiican ila socda. waxaan ila waad mahadsantihiin. fiidiyodeedu waxaa laga yaabaa inay yaryihiin ama aanan inta badan soo gelin, balse waad ku mahadsantihiin mar walba taageeradiina. aad iyo aad baan ii salaamay dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.